vocabulary waa ereyo cusub about ku saabsan world dunida ama adduunka. Vocabulary waa ereyo cusub qaybtan waa qaybtii shanaad ilaa iyo afar qaybood oo horeysay ay jirtay. Soo qaybtan waxay noqonaysaa qaybtii shanaad. Qaybtan waa waxyaabo ku saabsan dunida, waxyaabo ku saabsan ay noqonayaan. Number 1 waxaa noogu xusan ama noogu qoran border ayaa noogu qoran. Border waxay noqonaysaa waa xuduud. Xuduud oo labada dal ay u dhaxayso. Xuduuda Kenya iyo Soomaaliya oo kaleeto. The border between Kenya and Somalia that ay kaleeto waa xuduud u dhaxayso Kenya iyo Soomaaliya. So border waa xuduud. Number 2 oo kaleeto earthquake. Dadka qaarkood waxay u dhawaaqaan earthquake ay dhahaan, dadka qaarna waxay dhahaan earthquake ay dhahaan. Ani earthquake ma iska dhahaa meeshaasi. So earthquake waxay noqonaysaa dhul gariir ay noqonaysaa. So waxaa la dhihi karaa there is an earthquake took place in China oo kala dhihi kartaa. Dalka China waxaa ka dhacay dhul gariir ayaa ka dhacay. Okay, number 3 waxaa noogu qoran tsunami ayaa noogu qoran. Tsunami waxay noqonaysaa duufaan ay noqonaysaa. Tsunami duufaan aad u xooggan oo aad u weyn oo guriyaash iyo geedaha iyo baabuurta iyo dadka iyo xoolaha waxay dhan isku dardartay. Dabeel iyo biyo iyo roob is wataan waa tsunami da lagu sheegayo. Haddii hal mar ay bilaabato waxay ka tagayso malaan adduunka inay xaaqdaan laga yaabo. So tsunami waa wax dhul gariirka ba ka sii daran. So waxaan dhihi karnaa there is a tsunami right now there is a tsunami taking place in Japan oo kala dhihi kartaa. Haddeertaan waxaa jirto tsunami ka dhacayso Japan oo kaleeto. Okay, number 4 waxaa noogu qoran island ayaa noogu qoran. Island waa jasiirad, meel jasiirad ah. Meeshu way diyaarsan tahay, dad ayaa degan, xoolo ayaa ku nool, laakiin biyo ayaa ku wareegsan oo badda dhexdeeda ay ku taallaa. Island ayaa la meelahaas oo kaleeto. Haddoo kaleeto meel waxaa jirta oo ay dhahaan Madagascar inay taa u maleeya Afrika ku taalo oo meel jasiirad ah. Waa wadan weyn asagoo dhan waxaa ku wareegsan xeeb bis ku wareegsan. Madagascar inuu yahay ama Seychelles inuu yahay labada wadan mid waa adi. So waa meel oo biyo ku wareegsan. Dad degan garoon iyo diyaarad balaa wax walba ay leedahay, laakiin meesha biyo ku wareegsan. Dadka hadday rabaan inay ka safraan waxay isticmaalayaan buundooyin oo biyaha korkiisa lagu sameeyo kaleeto, ama diyaarada isticmaalayaan ama doon iyo markab waxaas isticmaalayaan. Dhulka caadi uma mari karaan waayo meesha waa biyo. So waxaan leenahay island. Island laguma dhawaaqayo meeshan s ku jirta, s waa silent. Waxaan leenahay island ayaan leenahay. So waxaan dhihi karnaa there is an island in Somalia. Dalka Soomaaliya waxaa ku yaalo island ayaa ku yaala dhihi kartaa tusaale kaleeto. Okay, number 5 waxaa ku qoran history. History waxay noqonaysaa taariikh ay noqonaysaa. History taariikh ay noqonaysaa. Waxaa dhihi kartaa I am writing my history. Waxaan qorayaa taariikhdayda. Taariikh wixii horaan oo u dhacay ay noqon kartaa, wax adig kugu saabsan haddeertaan dhacay ay noqon kartaa, wax dhici doona taa way noqon kartaa. History waa taariikh. Number 6 maxaa noogu qoran ocean ayaa noogu qoran. Ocean waa bad oo kaleeto. Waxaa dhihi kartaa Somalia has a very big ocean. Somalia waxay leedahay bad aad u weyn. Waxaa jirta wax kale oo la dhahayo Indian Ocean. Indian Ocean passes Somalia dhihi kartaa. Badda weynta Indian Ocean waxay martaa Somalia. Pacific Ocean waxaa la dhahayaa jirto. Mediterranean Ocean waxaa la dhahayaa jirto. So ocean waa xeeb ama bad aad u weyn. Number 7 maxaa noogu qoran international. Number 7 maxaa noogu qoran international. So I N T E R ayaa laga rabaa. So like this sidana laga rabaa. So international. International waxay noqonaysaa caalami. International wax caalami ah. Tusaale kaleeto waxaa dhihi kartaa Aden Ade International Airport. Garoonka caalamiga ee Aden Ade oo kale ayaa dhihi kartaa, ama Jomo Kenyatta International Airport waxa la dhahayaa jiro. Garoonka caalamiga ee Jomo Kenyatta lagu magac daray jiro oo ku yaal Nairobi oo kaleeto. So international waa caalami. Waxaa dhihi kartaa our language is international. Luqadeena waa caalami. Okay, number 8 waxaa noogu xusan population. Population waxaa waaye tiro dad ah. Tirada dadka ee meel ay ku noolin. Su'aal kaleeto qaxootiga Dadaab oo kaleeto waxaa ku nool dad oo ku dhow million ku dhow. Million ma gaaraan 600 oo kun 700 oo kun oo qof oo kaleeto ku nool. Waxaa la dhihi karaa the population of the Dadaab refugee camps is almost 600 amal dhihi kartaa. Population ka tirada dadka ay ku nool xerooyinka Dadaab waa ku dhawaad 700 ama 600 ama ku dhawaad million dhihi kartaa. Almost 1 million dhihi kartaa. 1 million population. So population waa tirada dad ee meel ku nool. Wadanka Kenya camal population kiisa meeqa
47 milyan ayaa la sheegaya inuu kasii bataa laga yaabaa. Soomaaliya kale meeqa 20 iyo xoogo milyan uu noqon karaa. So waxa waa tirada dadka ee meel ku nool ayaa maxaa la dhahaa population. Okay, number 9 maxaa noo qoran census. Census waxaynu leenahay tirakoob ayaynu leenahay. Dalka tusaale kale dalka Soomaaliya ay ka dhacday ma laakiin dalkani Kenya oo kaleeto 10kii sanaba hal mar ayaa dadka la tirikoobaa dadka ku dhashay dalkaasi. Tusaale kaleeto dadka sida lagu tirikoobaa camal as dhigi kartaa maxaa yeelay isbitaalada dadka ku dhasheen ayaa magacyadooda meesha ku qoran yihiin sanad walba inta qof oo ku dhalatay isbitaalka waa la hayaa intii hore ku dhalatay waa la hayaa wixii dhan way qoran yihiin kombiyuutarada ku jiraan hadoo kaleeto hay'adaha qaxootiga oo kaleeto inta dad oo meesha joogaan way garanayaan sababtoo ah magacyadii dhan u saf garaysanba kombiyuutarada ay ku jiraan waa la garanay inta qof oo meeshaas ku nool inta qof oo joogto inta qof oo qaxooti ku kooban yahay kulli tiradooda waa la hayaa. So hadda adduunkan aad u sii horumarayba oo dadka waa la ogaan karaa tirada waayo isbitaalada laga ogaan karaa iskuulada laga ogaan karaa waxaa la ogaan karaa goobaha ay ka shaqeeyaan inta qof oo joogto meelahaas oo dhan la ogaan karaa. So census maxaa waaye tirikoob lagu sameeyo dalka oo dhan lagu sameeyay 10kii sano hal mar la sameeyay waxaana la ogaanayaa tirada dadka ee ku nool dalkaasi inta ay gaartay. Maxaa laga yaabaa 10kii sano hadda ugu horeeyay inay ahayd 20 milyan. Okay, 10 sano kadib haddana hadii oo lagu sameeyo tirikoob waxaa laga yaabaa inay noqoto 25 milyan. 5 milyan ay kusii korortaa laga yaabaa. Tirikoobka sidaas loo sameeyo marka tirada oo dadka oo dalkaas ku nool intay noqonayso in la ogaado ayaa la rabaa. So waxaynu leenahay census. So waxaan dhihi karnaa meeshaan oo kaleeto Kenya and take census or Kenya does census and after every 10 years waxaan dhihi karnaa Kenya does census once after every 10 years adhigtaa Kenya waxay sameysaa tirikoob 10kii sanaba hal mar ayay sameysaa ayaa dhihi kartaa. Okay, number 10 waxaa noogu xusan tourist. Tourist waxay noqonaysaa dalxiise. Tourist hadaa maqashid waa dalxiise qof dalxiisaayo oo dalkiisa ka soo tagay meelo kale ku joogo oo xayawaanada iska daawanayo buuraha iska daawanayo badda iska daawanayo magaalada kaleeto iskaga soo wareegaya oo dalal kaleeto ama dalkiisa xataa intuu duurka iyo meelaha qaar u aado uu ku soo dalxiisaayo qofkaas waa dalxiise. So waxaad dhihi kartaa I am a tourist from Chicago. Waxaan ahay dalxiise ka imaaday gobolka Chicago waa dhihi kartaa. Ama I am a tourist from Mombasa. Waxaan ahay dalxiise ka imaaday Mombasa. Ama waxaad dhihi kartaa there are many tourists coming from Cape Town. Waxaad dhihi kartaa waxaa jiraan dalxiisayaal fara badan ka imaanayaan magaalada Cape Town. So tourist ayadana waa dalxiise ayay noqonaysaa.